Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh igu xiran sidee tihiin may fiican tihiin xaaladiina ka waran anigu idin wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub asxaabta sharafta leh saa ogeydina ayaantan xagafteyda waxaan ku iri badnayd oo safar baan isku diyaarinayay marka safarkayga waa beritoole hadduu ilaahay yiraahdo hawlihii kaloo dhan iyo wixii kaloo dhan aan qabanayay oo dhan waan soo diyaariyey waan soo dhammaystiray marka waxa waaye waxay hadhay inaan nafteyda aan daryeelo oo dee nafteyda bal safarkii u diyaariyo marka maadaama ayaantan oo dhan aan mashquul ahaa oo waxaan ku iri daalkeyga uu fara badnaa oo hawlo badan aan kala hagaajinayo aan kala xirxirayo safar isku diyaaris aan ku jiray oo aan daalanahay berina track dheer iyo safar dheer isugaayo maanta waxaan go'aansaday bal inaan nasto oo aanan waxba qabanin oo keliya nafteyda aan daryeelo qaybna waqtiga qaybta kalena dee aan nasasho ku qaato marka daryeelkii aan ka bilaabay ahayd saa ujeedaan wejiga waxaa marsaday mask baa ii marsan timahana sidoo kale mask baa marsaday tinta mask ii marsan janalkeyga maruraan soo geliyey kana waa mask yaroo isku dhex jiro oo maxaa la dhahay qasil iyo waxyaabahaas uu ka samaysan yahay soo daryeelkii dee skinka hadda halkaasaan ka bilaabay wixii kale aan qabanayana way la arki doontaan hadda waxaan rabaa inaan gacmaha ayaka scrub ah ku samaysto insha allah soo dhawaada daawasho wanaagsan videoga like share subscribe na ha iga iloobin insha allah soo dhawaada soo imika waxaan rabaa inaan gacmaha aan iska dhalaaliyo ma fahanteen oo iska nuuriyo marka scrub yar baan gacmaha usoo samaysanayaa halka waxaan kusoo diyaarsaday waxyaabihii aan scrubka ka samaysan lahaa waxaa bunigoo meesha iigu jiro waa kofee meeshana sonkor yar baa ii taalla sonkorta waa cadaan tan madow baa ka fiican laakiin anu maan haysanin inta madow soo tacad baan iska isticmaalay waxaa yar bunigoo meesha iigu jirana waa exfoliator amba scrub oo kale waxaa qoyanay ku dhex daadsano waa saliid almond wax biyaa laguma qoynaayo saliid keliyaan ani ku qooyaa kadib waxa waaye waxa dhan aan isku qasayaa kadibna gacmahaygiyo qalalan oo engegan baa waxaan sameynayaa scrubkii baan marinayaa kadibna saasaan isugu masaajeynayaa aa ujeedaan amba waan isku xoqayaa ma fahanteen saas waxa waaye diirka iskaga siibaya weliba meelaha oo laalaabatooyinkan xoog u xoqaaya marka waxa waaye 3-4 daqiiqadood gacmaha xoqaaya si dhadh iskiinka oo dhan uu iga soo dhaco dee gacmuhuna ay ugu nuuraan ma fahanteen soo waa kaasaa 3-4 daqiiqo markaan isku xoqaayo isku scrub gareynayay waxa waaye hadda waan ka faraxalanayaa waan iska mayrayaa kadibna mar labaad baa haddana scrubkaan isku celinaya hal mar keliyaba kuma daayo 2 jeer aan isku celiyaa soo markaan gacmahayga oo qoyan baan dee isku scrub gareynayaa sidii hore oo kale un baan isugu xoqayaa dhowr daqiiqadood scrubka yar inaba caadi maahan gacmaha safti ay kuu noqonayaan buush waxa waaye way kuu nuurayaan kaale iska arag buu kaaga dhigayaa ma fahanteen gacmuhuna aad bay muhiim u yihiin inaad daryeeshid maadaama ay yihiin waxa waaye dee wax mar walba la isticmaalayo because wax walba la qabanayo gacmaha lagu qabtaa soo finally waa kaasaa gacmihii waan kasoo mayray scrubki saasayna iigu soo baxeen soo haddana waxa waaye waxaan dalbaday ahayd adeeg oo saaloon guriga iigu imanayo oo ii sameynayo luga dhaqis waa kambani amba saaloon wareego guriga kuugu imanayo oodan baxayninba marka kuwiyaa ii yimid soo watana meeshana qalabkeedii oo dhan ay kusoo wada diyaarsatay dee ay lugaha ay iigu nadiifin lahayd ma fahanteen waa masaaj iyo luga nadiifin isku dhex jirta marka waa kaasaa gabadhii hadda dee luga nadiifintii ii hor bilowday marka waa kaasaa cidiyihii waxa waaye iga shape gareynaysaa waxay ii marinaysaa cidiyihii wixii cadaynayay waxa waaye cidiyaha hareerahooda oo dhan ay nadiifinay biyo oo lagu daray roos iyo alaabay iyo dhir ee biyaha lugaha la ii dhex geliyay nus saac ay iigu jireen lugihiyaa soft kusoo noqonayo waa la ii xoqay waxaan ku iri scrub baa la ii mariyay waa la ii masaaj gareeyay adada lugaha waxyaaba badanaa la iigu sameeyay ma fahanteen ilaa lugaha waa luga ma ogtihiin track dheer sii galayo safar dheer sii galaya marka waa inaan u raaxeeya ayaantan oo dhanna lugaha saan ugu taagnaan ugu shaqaynayay bay i daaleenbo xaggan ka orod waa iska fahmaysaan safar ma fahanteen marka aduu 90 daqiiqadood ay gabadhan lugahayga ka shaqaynaysay ugu dambeyntii waxay ii marisay ahayd maskiga oo lugaha la marsado lugaha intan oo keliya ta maahan waa jilibka wixii ka hooseeyo oo dhan bay shaqo ku socotay marka waa kaasaa maskan yar baan ku daayay 20 daqiiqadood markuu kuu qalalo bay igu tiri kareem marso soo waxaan sameeyay shower baan soo qaatay timihii jidhkii oo dhan aan soo wada maydhay kadib markaan showerkii soo qaatay aan kasoo baxayna hadda waxaan rabaa inaan kareemkan yar oo body butterka la dhaho inaan marsado markaa
lugihi iyo gacmaha oo keliya. Tan waa kareem yar oo aad iyo aad u fiican oo ku dhalaalinaya. Haddaad jidhka oo dhan marsatidna kaba sii fiican laakiin ani badanka lugihi iyo gacmuhun baan marsadaa. Ma fahanteen? Waa kaasaa daryeelkii naftayda maanta intaas ayuu ku ekaa. Marka hadda jikada ayaan soo galay. Waxaan rabaa cuntada ugu dambeysay intaanan safrin ka hor aan gurigeyga ku sameeyo inaan hadda sameeyo insha Allah. Marka waxaan soo qaatay shirimbi. Shirimbigaasaan sameyn doonaa oo talaagada iigu hadhay. Kaasaa iigu jiray talaagadaba wax frozen ah. Kii aan barafka kasoo riday kadibna waxaan kusoo darsaday milix yar, basbaas cas, xawaashi, saliid. Intii aan shirimbigii ku qasay ma fahanteen. Kadibna markaan isku qasay wixiiba air fryerkaan soo qaaday. Air fryerkaan saas ugu soo dhex riday shirimbigii. Shirimbiga waxaan ku shiili doonaa markaas mashiinkan air fryerka la dhaho kusoo dubmi doonaa. Intuu iisoo shiilmayo shirimbigii waxaan soo saartay maqli dabka. Wax yar oo saliid aan kusoo darsaday. Basal badan baan si yar oo dhuudhuuban oo dhaadheer usoo googooyay. Tii aan kusoo riday kadibna 3 nooc oo barbarooniyaal oo ayagana si dhuudhuuban aan usoo jaraan kusoo ritay. Kadibna waxaan kusoo darsaday wax yar oo basbaas ah, wax yar oo xawaashi isku jira ah, milix yar, kabsar iyo toon. Intii aan ku walaaqay markaa basashii barbarooniyaashan cabaar isku soo shiilay adii ilaa 5-6 daqiiqadood meelahaas. Kadibna waxa waaye markii saan isku soo noqdeen oo basashii ay yaraatay oo dantay oo dee si fiican isugu soo shiilmeen baan shirimbigii aan kasoo saaray air fryerka baan kusoo riday ma fahantay. Kadibna waan isku yara walaaqay. Kadibna waxaan soo qaatay biyo yar. Biyo yar baan ku shubayaa maadaama shirimbiga iyo khudradan labadooduba ay qalalan yihiin si ay qoyaan yar ay u sameeyaan dee oo lagu cuno. Baan biyo yar ugu daray. Dabka hoos aan uga dhigayaa waan daboolayaa. Dhowr daqiiqadood uu soo huuraa 3-4 daqiiqadood meelahaas. Dhowr daqiiqadood kadib waa kanaa cuntadii si fiican ay isugu soo hurtay. Qoyaan badan inay ii yeelatana kamaanan rabin. Intan bas aan rabay inay saan ii noqoto bas aan rabay. Waa kaasaa dabkeen ka daminayaa. Waxa waaye shirimbigeeni waxaan yaraadeen isku karsanay diyaar noogu tahay. Kadib waxaan sameeyay hal xabbo chapati aan soo diirsaday amba prata ah. Shirimbigii iyo khudradii aan kusoo riday. Ketchup yar baan korka kaga darsaday iyo wax yar oo salad ah. Koob liin macaanna waa soo ridqaday. Intan baan hadda aan isku qabanayaa ma fahanteen. Waan cunayaa waan ku casheynayaa. Marka waa kaasaa sidii sandwich oo kale aan isugu laabay. Intan aan dee si xaraga leh aan isugu cunay ma fahanteen. Halkaas aniga gamta ka saarayo. Finally waxaan sameeyay shandadahaygii aan ku safrayay oo aan xidhxidhay baan waxaan rabaa inaan miisaamo maadaama bari baxaayo dee inaan iska sii miisaamay intay yihiin soo miisaankan aan soo qaatay. Kadibna waa kaasaa shandadii wixii aan iska miisaamay. Maanta wax kale maan qaban intaas uu ahaa wixii shaqo aan qabtay ma fahanteen. Marka dee videoga intaas uu ku eegyahay. Shandadiina saas u miisaantay. Waxa waaye waan salaamayaa intaan videoga ku xiga ka kulmayno. Waxaan idin leeyahay maca salaama. See you soon insha Allah.